ku ma ogtahay inaad ku guuleysatay lacag fara badan oo darawaliinta macnaha Uberka la ganaaxay $3.4 million oo adigu laga yaabo inaad wax ka heshay markaas aan waxba kama helin show abkaaga furban kood abkiisu furaysa wuxuu ugu tagay $1,200 iyo something abka ugu jirta oo farxay oo yaabay cajiib waxaan idinaynaa barnaamij aad iyo aad xiiso leh waxaa maanta bartimo nooga studio-na la jooga Axmed Maxamed Maxamuud oo kamid ah ururka Driver Association ururkan oo ka tirsan Teamster oo local 117 marka waxyaabo cusub ayuu marka maanta noo sheegi doonaa aanan dadka hore ogeyn Axmed ku soo dhaw barnaamijkan bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan Maxamed waad ku mahadsantahay yani ogolaanshaadii ogolaateen inaad fursadan qaaliga ay siisaan Axmed kolley dad badan ba marka barnaamijka ka warsugay oo la talo muxuu Axmed maanta ku soo kordhiyay oo noo sheegi doona marka waxaan jeclaan lahaa dadweynaha iyo anaga maxaa noo sheegi lahayd maanta maxaa soo kordhay aad rabtaa inaad dadka la socodsiiso waa su'aal aad u qiimo badan xaqiiqdii Maxamed waqtigii isku keeya dambeysay dagaalka ku saabsan darawaliinta meel buu marayay meesha uu marayay waxaa hormuud ka ahaa oo waday dagaalkaas Drivers Union oo ku xidhan Teamster Local 117 dagaalkaasi qaybo badan buu lahaa qaybihii uu lahaa in waqtigiisa uu keen dambeysay guulo badan laga gaaray iyo qaybo guushoodu ay dhimanayd intaba waxaa mar walba khasaba marka in aan update gareyno dadka oo aan u sheegno kolba meesha xaalku uu marayo maanta waxaan aaminsanahay Washington State darawaliinta wada Uberka iyo Lyftiga in ay ku qanacsan yihiin dagaalka iyo xaaladdu meesha ay marayso ayna raalli ka yihiin guulaha iyo horumarka ay sameysay Drivers Union meesha ay xaaladda marinayso okay inteenan dadka hore u arag ama u maqal Drivers Union maxaa nooga sheegi kartaa horta ururka ururkani waa urur ay ku midaysan yihiin dhammaan darawaliinta ku dhaqan maxaan ku dhahay Washington State oo ka badan 31,670 iyo waxba qiyaasta lagu tilmaamaa maadaama oo markastaba qayb hor lagu soo daro ururkani waa urur u dhaqdhaqaaqa ama organizationkani waa organization ay foundationkeeda iyo isku dubaridkeedaba ay leeyihiin unionka ama Teamsterka iyaguna qayb kamida union ururkani waxa uu macnaha uu u dagaalamaa xuquuqda darawaliintu waa inay helaan shaqadooda iyo maxaan ku dhahay income-kooda intaba waa in ay helaan cadaalada iyada ay tahay waxa uu ururku xooga saaro in badan oo kamid ah uu ku guuleystay sharaxaada dambe ee imaan doontana aad ka fahmi doontaa dhaqdhaqaaqa ururku uu sameeyay meesha maanta marayo sax numberka marka tire wax 31 buu kor u dhaafay wax weeyaan waa number aad iyo aad u badan marka maxaad nooga sheegi kartaa wax qabadka ururka marka maxay idin suurtagal ilaa imika waxyaalaha noo suurtagalay taagan waa wax cid kasta oo darawal maanta ay ka turjumi karto ama ay ogtahay waxa kamid ah in intaas oo kun oo darawal aan ka caawinay in ay helaan unemployment-gii aan ka caawinay in aan u fududeyno sida ay u sameysanayaan macnaha ay u fiilka ay u buuxinayaan foomka aan ka caawinay caqabadihii ku taagneed anaga oo week kasta la shiraynay qoladan ESD-ga ama unemployment-ga qaybta u qaabilsan maxaan ku dhahay gig workers-ka dadkaasina aan u sameynay adjustment iyo barnaamijkaas qaybta labaad ayadana aan wax la soo koobi kara ahayn oo xaqiiqdii darawaliintu ay aad iyo aad ugu farxeen baa waxa ahayd in aan ka shaqeynay Fairbay oo maanta City of Seattle fairkii aad ka qaado halkii mile aad ku qaadayso $1.30 minute-kiina aad ku qaadayso 57 cent markaasoo berigii hore uu ahaa $1.11 mile-ka minute-kuna uu ahaa 18 cent yani waa dareemi kartaa difference-ga aan gaadhsiinay qofka darawalka meeshii uu ka heli jiray uu ku qaadi jiray $1.11 maanta inuu ku qaado $1.33 by mile minute-ka meeshii uu ku qaadi jiray 18
centina maanta uu ku qaadaya 57 centi yani waa faraq aad u weyn baa u dhexeeya aad odhan kartaa annaga oo markaa iyada maximum garaynay waqtiga darawalku uu gelin lahaa si biilka reerkiisa uu bixiyo waqti ka yar inuu geliyo biilka reerkiisana uu bixiyo xuquuqda saddexaad ee aan ku guuleysanay baa waxay tahay inay darawaliintu helaan 30 maalmood hal maalin oo off ah maalinkaana uu helo wixii uu samayn jiray maalinkaas ee income-ka ahaa uu helo taasoo aan u bixinay BSST ama maxaan ku dhahaye seek and safety driver seek and safety oo ah darawalku inuu leeyahay one day uu isagu isbitaalka aadi karo ama familigiisa uu isbitaalka geyn karo lacagta iyada ana uu ku guuleysto taasina ay tahay xuquuq darawalku uu helay oo ziyaado ah midayda ugu dambaysa waxay tahay in deactivationka ama shuruucda lagaga xiranayo darawaliinta aanu sharci ka soo saarnay muddo badan aan u dagaalamaynay la baasgareeyay sharcigii drivers union maanta haddii uberka ama liftigu ay kaa xidhaan same time ay ku dhahayaan u tag drivers union ayaga ayaa kaa caawinaya deactivationka صح اوكي aan kala qaadno maxaa hadda leedahay dadkii driverada inteena programkan ayna idinka sameeyeen ama ayna ku guuleysan waxaa leedahay income-kooda ka yaraa ka imka helayaan aad iyo aad especially city of Seattle aad iyo aad buu uga yaraa anu waxaan ahay darawal oo wadi jiray hadda sometimes waan kaxeeyaa si aan u ogaado xaqiiqda waxa meesha ka jira anigu waxaan represent gareeyaa Soomaalida oo aan uga taagnahay qaybtaas cid kasta oo barnaamijkaas ka qabta warna oo isoo weydiin kartaa anytime 24 saacna darawaliinta oo wada hadalaa waan gaarsiiyaa xogta dhabta ah ee jirta صح اوكي tan kale aad ka dhawaajisay idana guusha aad tiri waxa weeyaan waa maalin bay leeyihiin bishii 30 cisho maalin inay u qaataan qof markaas uu apply gareynaya maalintaas oo kale soo helaya waxaa jira liftiga iyo uberka appkooda labadaba way ku jiraan inta maalmood ee eligible-ka ku ah markii aad appkaaga dhex gashid waxa aad macnaha wuxuu leeyahay appku yani option walba iyo si macnaha loo raaco oo intaad u kili garayso kadibna uu ku gaarsiinayo positionka iyo wixii aad u baahnayd seek and safety-ga markii ay city of Seattle baas gareeyeen wuxuu noqday macnaha sharci ay ku soo dareen ama maxaan ku dhahay qayb ay ku soo dareen appka uberka iyo liftiga labadaba anytime oo aad appkooda furtid oo aad aadid menu-ga caadiga qaybta caadiga ee laga galo informationadu ay ku jiraan ama documents ay ku qoran tahay ama setting-ka ama waxaas oo dhan markaad gashid automatically setting-ka waxaad ku arkaysaa seek and safety kadibna waa taabanaysaa oo waxa ku soo baxay inta maalmood eligible-ka u tahay marka inta maalmood ay ku soo baxdo ayaa inta maalmood aad doonaysaa inaad off qaadato ayaad ka dooranaysaa kadibna intii maalmood baad off qaadanaysaa shaqadaada qabsanaysaa inta maalmoodna waxa ku baykareynaya within 14 days kambanigii aad ka dalbatay adiga oo aan wax shaqo qabanin maalmahaas waa harsale marka teamkiinu saad ka dhawaajinayso waxyaabo badan baad ku guuleysateen maxaa kaloo ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa seek and safety-ga oo kale markaan dib ugu noqono waxaa jira kambaniga uber la yiraahdo in uusan darawaliinta u siinin sidii saxda ahayd kadibna inayna soo gaadheen darawaliin aad u fara badan oo ka cabanaya uberku in aysan siinin xaqii ay lahaayeen kadibna dhaatadii ayada ahayd aan record garaynay aan wadnay aan iska kaashanay maxaan ku dhahayay xafiiska shaqaalaha ee Seattle oo isaguna enforce gareeyay in uu dabagal ku sameeyo wixii ay darawaliintu ka cabanayeen annaguna aan recordkoodii keenay kadibna uberka in la ganaaxo $3.4 million ku dhacday jeebka darawaliinta ragga qaarkood for example yar hadaan ku siiyo nin oday ah oo hadda soo galay oo intii uu shaqaystay kadibna vacation iska aaday baa soo noqday wuxuu ku soo noqday magaalada Seattle lacag la'aan baa hayso qofku markuu soo noqdo waad ogtahay maxamed xaaladdu meesha ka marayso markaas aan la kulmay waxaan ku yiri waran adeer ma aan seetay xaaladda ka waran markaas wuxuu yiri adeer iska fiican hadaan soo galay waxaan ku yiri ma ogtahay inaad ku guuleysatay lacag fara badan oo darawaliinta macnaha uberka la ganaaxay $3.4 million oo adigu laga yaabo inaad wax ka heshay markaas aan waxba kama helin show appkaaga furban ku soo furaysa wuxuu ugu tagay $1,200 something abka ugu jirta oo farxay uu yaabay ajiib ay ku noqotay taas waxa keenay waa drivers union صح iskama aysan imaanin waa dagaal aan u galay taas marka waxay ku tusaysaa wax qabadka darawaliinta aan u hayno cid kastoo darawalana maanta ay ogtahay صح lacagtaas qof walba ma helan dad qaar ma helay waxaa helay 15,000 oo darawal oo qofka ugu yar uu helay one day at least wixii uu eligible-ka u ahaa seek and safety okay haddii aan taa laftirkeeda aan ka sii yara faaloona 15,000 qof
maxaa lagu qiimeynaya marka inuu qofkaas ka mid noqdo sanadkii hore qof soo shaqeeya kii ka horeeyay sanadkan baa عدد كنت لا يقول مركا. سكن سيفتي وحل بو بالوضي وحسوا بالوضي 2020 أوكي. السبب اللي قلت لك علينا واحد حل بانديميكا دبعتوهم كأيشرين. جناح مركا. مركا جناح أنا وحو هادتك حل جاس أتليست سوشيال. ده البضي وح. ده لبعض كودي أنسي صح وهلين. صح. هذا for example أكلنا بوحو هلاي $5,400 and something. وجناح أو سوماليا أنا سوماليا. أو جناح اللي هو جناح أوبر كهلا. شقي سنة ينا أوبر كيسي هوشي سوته. مركا waxa weeye waa back pay culus waay oo accountigiisa ku dhacday waa taasi ma uusan ogeyn marka Axmed every single day uu oleynayay dadka abaabulayay ee shaqadan ka shaqeynayay anigu waxa suurtagal xitaa inuusan ogeyn sababtoo aan ogahay one single day inuusan imaanin laakiin faa'iidadii aan keenay iyo dagaalkii drivers union markii ay galeen ay ka soo shaqeeyeen faa'iidadii ugu badneyd isaga helay صح marka waa wax ku dhacaya shakhsi kasta oo darawal jeebkiisa ma aha wax shakhsiyaad khaas ku dhacaya صح aad baan ma santaana waxa noo kala faahfaahsan gabagabadii barnaamijkan soo gaarna waxyaabo aad leedahay oo dadkan aad u sheegleed ma jirtaa oo aad ka tagtay waxa ugu muhiimsan ee aan doonayo ama qodobka ugu muhiimsan ee aan doonayo inaynu ka hadalnaa wuxuu yahay deactivation-ka ama qofku isagoo oo saaka iska soo kalahay abkiisa iskaga shidan yahay u soo shaqo tagay reerkiisa inuu email u soo dhaco la yiraahdo ay maxamed maanta waa laga xidhay abki ma bashaqaysan kartid ma yaqaan reasonka ama waxa laga yaabaa islaan cabsanayd oo gadaal dambe fadhiday waxay ogtahay ba jirin inay tiri maxamed ma uusan ku haboonayn gaariga inuu wada sababta jidku ka baxay ayadaaba jidka ka baxsan already sababta way khamraysan tahay ba ayadii jidka ka baxsanayd ba waxay ku dacweynaysaa darawalkii inuu totally jidka ka baxsanaa arinta ayada adarteed in laga xidho marka abka tii ayada ahayd dagaal dheer baan u galay shuruuc baa laga soo saaray waxa u furan maanta wax la yiraahdo drivers resource center ama drivers maxaan ku dhahay resolution center oo ay gacanta ku hayaan drivers union shakhsiga mar allaale iyo markii arintaas iyada ay ku dhacdo hadii uu yahay shakhsi Soomaaliyeed mar alla waxa ubarku uu u soo dirayaa note kaas oo la leeyahay telefonkaas waa drivers union kala xiriir hadaa doonaysa inaad challenge karaysa kiiskaada kadibna marka uu telefonkaas soo waco afka uu ku hadlo sheegaya markuu yahay inuu Soomaali haduu yahay ana la soo diraya Axmed aniga kiiskiisa qaadaya kadibna waxaan u sameeynaya interview baan la yeelanaya say arintan u dhacday iyo wixii oo dhan information-kii oo dhan baan aruurinaya information-kii markaan ka aruuriya waxaan weydiisanayaa macnaha maxaan ku dhahay wax alaaliya wixii requirement kale noo dhiman kadibna halkaas ayaanu ka challenge gareynaa in every single day hadii uu khaladka isagu uusan lahayn oo khaladku company-gu yeesho maalin kasta wuxuu leeyahay oo uu fadhiyay shaqada uu ka fadhiyay $200 oo lagu ganaaxay uberku in uu bixiyo qofkaas lacagtii uu sameyn lahaa every single day markii uu fadhiyay laana qofku shakhsigu wuxuu bishaa reer tii ayada ahayd baan ka soo shaqeynaynaa oo aan doonaynaa darawalka inay jeebkiisa ku dhacdo maxamed marka waxaan su'aal ah oo adiga ku taal hadii drivers union ay wax qabadka intan dhan u sameeyeen darawaliinta ma la oran karaa wax la inkiri karaa mise darawaliinta wax badan bay u qabteen intan oo dhan miiskay wada saaran yihiin waa wax cad darawaliinta jeebkooda ay ku dhaceen waxa maxaan ku dhahayaa siyaasad ama aha waa wax kaliya tanaan marka doonay in aan maxaan ku dhahay waqtiga inagu yar laakiin in aan darawaliinta Washington State ku nool aanu iftiimiyo levelka maanta ay joogaan drivers union ay maxaan ku dhahay ay joogaan waxaan kaliya oo aan u sheegaynaa shakhsi kasta in uu la soo xiriiro drivers union member uu ka noqdo uu maxaan ku dhahay ku difaacdo xuquuqdiisa darawalnimo si aan u gaadhno horumarka maanta aan gaadhnay iyo mid ka sii culus taas ayaan insha Allah bismillaah alkariim u sheegaya darawaliinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waana aaminsanahay inaan ku dakafa gareyn karin waxa la leeyahay wixii information baana laakiin insha Allah waa topic aad iyo aad u dheer oo ka wada hadli doona mar walba waan keeni doonaa Axmed si uu sifaafay noogu sii sheego waxyaabaha isbedel mar walba dhaca insha Allah kuwa kale oo dheeraada kulay dagaalka kulay ma dhamaan ba maleenay ma dhamaanin idinka update ma sawgashan driverada dadkii doonayeen la soo xiriiraan Axmed iyo driver union association la soo xiriiri karaan way heli karaan mar walba iyagoo aad iyo aad baa mahadsantahay Maxamed thank you very much daawada idinka aad baa mahadsantiin